sida u timid xukuumaddan hadda talada haysa ee uu hogaamiyay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa gebi ahaanba istaagay wadahadalkii u dhexeeyay Somaliland iyo Soomaaliya maxaa u sababa isleedahay inuu wadahadalkaas istaago maba jirtaba de Somaliland ay dawlad siday nimankan talada u yimaadeen aqli darro yar waxay qabaan dalka gacanta ku wada dhiga haddaad ku dhigi karin awood yar tahay dawladda leedahay isticmaala dadkan Somaliland wax loo rabto male anu dadkii ugu horeeyay ka qeyliyaan mucaawanada laga joojiyay oo leeyahay la soo marsiiyay halkan oo qaab ka duwan mucaawanada loo sii jiray fidna dhexdeeda inta la abaabulay laga soo kiciyay oo dad dawladka si tageen deegaanaas ay fidna ka soo kiciyeen waa labo wax kasta oo Somaliland ay ku fogaa karto inay dhisato ganacsigeeda iyo maalgelinta Somaliland in la hormariyo oo dhan ayaa laga hor istaagay waxa ugu dambeeyay hadeertaan qof human rights abuse loo haysto oo inuu ku xadgudbay dad muwaadiniin deegaankaas ka soo jeeda oo ku xadgudbay maxkamadda Mareykanka ka dacweeyeen yaa madaxweynaha isla sawiray oo soo garab istaagay oo xataa xafladii la maamulay waxaan la yaab waxay tahay anigu sawir baan isaga haystay waxaan hadda arkayba ninkii xafladii wax ka maamulay marka de Somaliland maalin kasta waxa dhaawacaya oo la sii fogeynaya oo adeero god lagu sii ridaya wada hadalkii waa dawladana ku sii riday taas kaliya ma war kuwa yaraayo hadda loo dhiibay kala diraysaaba Somaliland ka hadlaysa Puntland hadda confederal leh Jubaland hadda meel u carabto iyo baxsad ah intii yarada loo dhiibay yeeba kala irdeynaysaaba baydhaba ogtaa wixii ka dhacay oo xasuuq ahaa oo intaas oo qofood ilaa 20 qofood lagu dilay gabar yar oo masaakiin oo maalintii ka qeyraysan ilaa hadda xabsi ku jirta oo tii waxa anaga marhabna kaliya dibkan oo hadda uu leeyahay midkii madaxweynaha meesha ka ahaa qof dawladda ka soo jeeda meeshan kuma shiri karto war waxa soo dhan dawladku ka caysa Somaliland hadda maba loo fadhiyo war intii yareeday federaalka gobolada loo dhiibay hadda laga leeyahay wax ay dan kale yihiin nimanka shacabka Soomaaliya u sheegayna nimankaas talada haya haddii xilligooda dhamaado ama way iska tagayaanba wax allaale waxay eel dhigeen danka ma laha oo dalkan ay si kala fogeeyeen danka ma laha si la isku keeni karo Soomaaliya danka ma laha wixii dadkan ka soo galay oo dib u heshiisiin iyo process ah iyo kuwa isdilay iyo kuwa isdilinba oo meesha lagu soo yimidne danka ma laha horena dan uga ma lahayn marka taas ayaan darada jirtaan waa midaas oo ugu weyn meesha waxaa tahay siyaasi wax badan kala socda xaaladda ka jirta dalka maxaa isleedahay sidee lagu soo noolay karaa wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya sideese ugu habboon ee loola dhaqmi karaa Somaliland maadaama ay sheegatay goor isku taag waxa Somaliland ay ka cabanayso oo ay tabanayso in laga garaabo kow oo si rasmi loo garaabo labo in la dhiso kalsoonida saddex in Somaliland waxay ayada qabtana miiska soo saarto dawladda Soomaaliyeed ee federaalka waxay qabtana miiska saarto aan la soo gabanin aniga waxaan aaminsanahay haddii midnimo la rabane Hargeysa ay ka bilaabato hadda anaga Muqdisho ama federaalka aan midnimada Somaliland iyo Soomaaliya aan rabnane Hargeysa ka bilaabato wana Hargeysa la qanciya Hargeysa haday rabto inay naga go'do naga baxdane Muqdisho ka bilaabata Muqdisho taala oo inay Muqdisho qanciyaan ayagana oo kaliya iskama tagi karaan si marka la isku qanciyo waa in wax kasta miiska la soo saara la wada hadlaa laba dhisaa kalsoonida labada dhinac ka dhaxaysa la dhisaa oo ficil kasto oo kala irdeynta keeni kara aan lagu kicin sidaas oo kale maamulo dalka ka jiraan sidoo kale ee federaalka ogol dawladda federaalka waxa laga rabaa inay san tusinin irdeynta nimanka qolada talada haystay nabadii nolol baxday maalin kasta waxay marka qaarkood waxay soo celiyaan xasan sheekh oo maamul goboleedka la fadhiya madaxweynihii hore ay leeyihiin waa ka saamiiska dhinac walba laga fadhiya ma talo haysta xasan sheekh realistic uu noqdo wax kale ma talo oo haysta maxay tahay xasan sheekh oo dalkan ku hayo oo tan sheegay waa in dadkan qoloba waxay haysataa oo ku soo qanciya isku keena laga rabaa oo kaliya wax kale ma jiro koox wuxuu leeyahay ma waa kaas waa la kala dambeeya sawir waxaan arkay nimanka horta conceptiga dhanaa qaldanba wiilal yar oo ayaga taageersan oo social media ay ku soo daayaan yaa waxaan arkay madaxweynaha qolo wafdi markaas African Union ma ay daba socoto leeyahay kala dambeyn iyo dawladnimo soo noqon war kala dambeynta saf iyo maraasiim iyo protocol iyo meel la tagay iyo marka kursiga fadhiso madaxda maal goboleedka gees fadhiso adig kursi weyn dhexda dhigatay iyo waxaas kala dambeynta ma wax macnaha ku fadhiyaan male kala dambeynta waxa waaye dadku inay is ogolaadaan ay ku qancaan gurigan sheegay inay wada degaan